muddooyinkii u dambeeyey dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka waday caasimadda Hargeysa olole ay ku baabiinayaan meheradaha ku ag yaala waddooyinka agtooda gaar ahaan meheradaha ku dhex jira waddooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa. Meheradahan ay dowladda hoose gacanta ula tagtay saaka aroornimadii hore ayaa waxa badanka ku ganacsada dad danyar ah oo noloshoodu aad u hooseyso. Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa waxa ay burburiyeen boqolaal yaryar oo meheradaha waddooyinka ku ag dhow ah iyagoo adeegsanaya cagaf ay gelinayaan meheradahani iyo ciidamada biliiska dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaanu wax ka weydiinay sida ay u arkaan duminta iyo baabiinta ay dowladda hoose ku soo rogtay ganacsatada waddooyinka hareerahooda ku ganacsada. arkaa inay fiican tahay oo dariiq way degay dariiqii dadku marayay baabuurta marayay ay cidhiidhiyeen marka in la dumiyo oo dariiq la baneeyo waan raacsan anigu waxaa way u baahan tahay mar haddii saa loo dumiyey oo sidaa dadkii loo kiciyey in dariiqii la ballaadhiyo intaa laga ballaadhiyo haddii kale oo intuu lagu celiyo waa khasaara baan leh. waxaan ugu baqay dowladda in dariiqa ay kordhiso oo intuu ahaa in la ku darto si labahaadu noqdo iskarabiica. waxaan ugu baaqayn odhan lahaa dadku inay dowladda maqlaan waddankooda waa la qoranayaa ay u hoggaansamaan oo deeqda ku guuraan baan leh. bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa dubintan meesha la dumiyey horta aad baan ugu faraxsanahay in waddooyinka la banneeyo laakiin mid baa ka horraysa waayo waddadeenna waad arkaysaa in la sameeyo waddadii ayaa ka horraysa oo dadka wax loo qabto ta labaad dadka in shaqo abuur loo sameeyo boqolaal qof baa la dumiyey oo ku saabiiraya intii hore fadhida marka waxaa muhiima dadka horta in inta hore ee joogto shaqo loo sameeyo kadibna wax la sameeyo ama meelo la dejiyo iyo maamul loo sameeyo waayo dadkii de barakac ka daba tegay bay noqonayaan. waxaan hoose ugu baaqayaa inay samayso waddada waayo waddadeenna waad arkaysaa haddaad gaari kaxaysato aad baad u dareemaysaa dhibteeda. haddaba dadkan oo aan la siinin wax digniina oo ay hore u qabeen ayaa waxaa saaka aroornimadii horeba ku waabariistay cagafta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa halkaasi oo ay ku burburiyeen dhammaanba ganacsigii ay ku lahaayeen waddooyinka hareerahooda ee magaalada Hargeysa. waa Mustafa Axmed Samakaab wararka STN TV gudaha magaalada Hargeysa.